الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaal insha allahu tacaala waxaan bilaabi doonaa darsi cusub kaasoo ku saabsan tacliimu salaa, barashada salaada waa rukni ka mid a arkaanta islaamka. sidaa daraaddeed maadaamay tahay salaadu rukniga labaad ee islaamka, tiirka labaad ee islaamka, qofkana waxaa waajib ku ah inuu barto barashada ay kaga ansaxayso salaadiisu. marka insha allahu tacaala waxaan door biday inaan kala faa'iideysano, marka aan bal bulshada usoo bandhigo kitaab yar oo qurux badan oo laga qoray habka barashada salaada ama sida salaada layskaga saxo. dad badan waxaa laga yaaba inay idhaahdaan ma hadda salaadan la barayaa anagu intaa leeg, laakiin taa macnaheedu sidaa maaha. qofka waxaa laga yaabaa inay aqoontu ka maqan tahay qeyb ka mida, markaa aada wuxuun ka faa'iido kitaabkan tacliimu salaa waxaa alifay sheekh la odhan jiray maxamed maxamuud asawaaf raximah allahu tacaala, ilaahu naxariiste. maxamed maxamuud asawaaf wuxuu ahaa nin ciraaqiya oo dalka ciraaq ku dhashay, inkastoo qabiilkiisu asal ahaan ay ka yimaadeen xagga iyo sacuudiga 200 sano ka hor way kasoo carareen, laakiin waa ciraaqi. muusal, magaalada muusal buu ku koray, uu ku dhashay. nin weyn oo caalimo ahaa, kutub badan iyo dhaxal badan ka tegay. wuxuu ahaa sidoo kale nin aada iyo aada ugu dadaala inuu uhiiliyo qadiyadda filistiin iyo dadka muslimiinta ee dulman, yuhuuddu dulmiso. markaa wuxuu sameeyey xilligaa 1953 wuxuu sameeyey urur la yidhaahda inqaadu filistiin, badbaadinta filistiin, oo aada u weynaa, oo uu kula dagaalamayay macnaha xilliga maadaama cusbeed oo ahayd xilligii yuhuuddu lagu beeray filistiin. marka ururkaas wuxuu ahaa urur la dagaalamaa yuhuudda oo macnaha wacyigelin, dadka muslimiinta wacyigeliya qadiyadda filistiin inaan laga seexan, oon la hilmaamin, oo loo hiiliyo garb la siiyo. marka ninkaas sheekha maxamed maxamuud sawaaf waa la colaadiyey, niman shuuciyiina iyo niman calmaaniyiina oo dabadhilif u ahaa xilligaas yahuudda iyo maaragtay reer galbeedka ayaa colaadiyey. markaa waa la xidhay jeelka abu qurayb ee ciraaq ku yaala, baqdaad ayaa lagu xidhay. kabacdi waa lasoo daayay, markaa wuu soo baxsaday, sacuudiguu yimi. xilligaana waxaa haystay boqor faysal ayaa haystay oo nin aada u fiican ahaa. boqor faysal aada buu usoo dhaweeyey sheekhan, waxaanu ka dhigtay la taliyihiisa arrimaha muslimiinta ama islaamka. markaa wuxuu ka dhigay yani nin uu diro oo safiir oo kala. markaa kitaab aada u fiican baa jira uu qoray, uu kaga sheekeynayo wadanadu tegay, wadano badan buu tegay oo etoobiya ka mid tahay, waxyaabuu kusoo arkay xaaladii muslimiinta. marka ilaa u naxariistay sheekhani wuxuu aada la saaxiib ahaa boqor faysal, sacuudigaanu ku noolaa muddo dheer, halkaasaanu ku geeriyooday. kutub badan buu qoray oo ay ka mid yihiin qur'aan, kitaab la yidhaahdo wakhayru thulaath suwarin unzilat. kutub kalaa jirta almukhatadaat alisticmaariya limukaafaxati alislaam, waxaa kaloo kamid a kutubtiisa nidaa lislaam ayaa kamid a qur'aan, tacliimu salaa oo ah kitaabkan markaynu eegi doono, bayna arucaati waducaat. way badan yihin kutubtiisa. wuxuu geeriyooday ilaa naxariistay 1992 ayuu geeriyooday maalin jimca, oo taariikhda islaamka ku beegneed sanadkii 1413 bishii rabiicul aakhir ayuu geeriyooday. xilli uu socday istanbul, oo xilli uu ka yimi istanbul uu rabay inuu dib ugu laabto makal mukarama ayuu geeriyooday, isagoo dacwad kasoo noqday. socdaal dacwadeed ayuu kasoo laabto oo turkiga ku tegay istanbul, markaa maku dib ugu laabanayo. marka halkaas ku dhintay, dhexda ayuu ku dhintay intii yani diyaaradda la sugayay inay kacdo, diyaaradda dhexdeediiba ku geeriyooday. kitaabkan walaalayaal wuxuu ka sheekeynayaa barashada salaada si yaroo fudud ayuu usoo bandhigaya. marka koowaad salaada ayuu ku bilaabayaa
makaanatu salaa fi lislaam wa xukmu taarikiha, makaanada iyo kaalintay ku leedahay salaadu islaamka iyo qofka ka taga xukunkiisa. yacni qofkaasi ma qof muslim usii ahaanaya qofkaan weligiiba tukan haddana shahaadanaya, mise waa qof muslima oo laakiin ah qof faasiq oo caasi. salaadu waa tiirka diinta, qof kastoo muslimina taa u qirsan yahay, qof kastana qalbigiisa way ku jirtaa inay tahay salaadu camuudu diin, inay tahay lafdhabarta diinta. waana ta lagu kala sooco qofka mu'minka ah iyo qofka aan mu'minka ahayn, salaada lagu kala gartaa. ilahi wuxuu yihi xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa waqumuu lilahi qaanitiin. salaadaha xifdiya buu ilaahay yihi ilaaliya oo hadayicina. sidoo kale salaada casar ilaahayna isku taaga idinkoo khushuucsan oo khuduucsan oo fikirkii iyo walbahaarka adduunka maskaxdiina ka saaray oo qalbigiinu saafiyay ilaahay hor istaaga subxaana wa tacaala. axaadiis badan baa jirta oo ka hadlaysa kaalinta islaamka ay ku leedahay salaadu, oo rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam awalu maa yuxaasabu calayhi alcabd, waxa ugu horeeya qofka lagu xisaabin doono yowma alqiyaama, maalinta yowma alqiyaama asalaadu yihi rasuulku waa salaada. fa in saluxa saa'iru camalih, haddii salaadu u hagaagto acmaashiisa kaloo dhan u hagaagtaa buu yihi rasuulku. wa in fasadat fasada saa'iru camalih, haddii salaadu ka xumaatana xisaabta kaloo dhan way ka xumaanaysaa, acmaashiisa kaloo dhan way ka xumaanaysaa. qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. ilaahay wuxuu uhi waxaa liibaanay mu'miniinta salaadooda ku khushuuca. taasi waxay ku tusinaysaa dariiqa iyo wadada guusha iyo liibaanta adduunya aakhiraba inay tahay salaada ayay ku tusinaysaa. salaadu raad bay ku leedahay nafta iyo daweynta walbahaarka iyo fikirka, waxay ku leedahay raad weyn ayay qalbiga ku leedahay. oo qofku markuu ku khushuuco salaada naftiisu way degaysaa, qalbigiisuna wuu xasilaya. waxaanu baranayaa qofku aadaabta cibaadada ayuu baranayaa, wuxuu xidhiidh adag la yeelanayaa ilaahay subxaana wa tacaala. ilahay wuxuu yihi ina salaata tanhaa cani alfaxshaai walmunkari walbagyi walmunkar waladikru llahi akbar wallahu yaclamu ma tasnacuun. ilahay wuxuu yihi salaadu qofka waxay ka reebtaa xumaanta, waa markuu qofku laakiin salaada ku khushuuco xumaanta iyo fuxshiga ayay ka reebtaa. xuska ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wax walba ka weyn, ilaahayna wuu ogayay wax kastoo sameynaysaan. salaadu waxay shifo u tahay iyo dawo, quluubta ayay dawo u tahay, qofka jirkiisa dawo u tahay. qofku jimicsi iyo sportis weeye oo qofku jirkiisu kala baxaya, ruuxdiisu way daweysmaysaa. markaa salaadu waxa weeye waa faa-iido adduunya aakhiraba faa-iiday ku tahay, qalbigaaga iyo jirkaaga wax walba faa-iiday u tahay. oo weysadoo kale dee waa dahaaro iyo nadaafad weeye, waa cibaado ilaahay subxaana wa tacaala lagu dhowaanayo, waana furaha salaada. haddaanu qofku weysaysan salaadayda kama ansaxayso. salaada waxyaabaha faa-iidooyinka leeda waxaa ka mid a alwaxda walmusaawaat fi salaa, dadku way ku midoobaan waanay siman yihiin. marka salaada la gelayo safka waa la siman yahay. laa farqa bayna alghaniyi walfaqiir, bayna alkabiiri walsagiir, bayna aldakari waluntha, lab iyo dhadig lama kala socona, mid yar iyo mid weyn, mid faqiir iyo mid haniya. ilaahayba subxaana wa tacaala si siman loo hor istaagayaa iyadoo la siman yahay, oon la iskala sooceen, oo aanay jirin iyo sitaan iyo maaragtay xaqiiritaan midna aanay jirin. waayo waxaa keliya la iskugu yeeraya waa maxay? xaya cala asalaa, xaya cala alfalaax, liibaanta u kaalaya, salaada u kaalaya. marka taana waa loo sameeyey. wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada. masaajidada ilaahay baa iskale, ilaahay cid aan ahayna ha ku caabudina, waxaan ilaahay ogoleyna masaajidada dhexdooda ha ku sameynina. marka waa meel loo siman yahay goobta ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay la hortiisa la taagay qibla waaxida, jamaaca waaxida, jamaaco qura, qiblo qura, ilaah keliya subxaana wa tacaala, diin qura, nebi keliya calayhi salaatu wasalaam laynoo soo diray. kullu shayin muwaxad, wax kasta waa midnimo. markaa salaada waxaa laga faa-iidaa waa midnimo. wadcuuhu khawfan wa tawca, idinkoo midaysan ilaahay
barya oo ilaahay rajaynaya khayrkiisa iyo wanaagiisa iyo nimcadiisa kana cabsanaya oo iska dhooraya ciqaabka ilaahay subxaana watacaala ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin naxariista ilaahay waxay u dhowday dadka muxsiniinta ah ee wanaagga sameeya qofka salaada ka taga xukunkiisa insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa videoga ku xiga maadaama nugu talagalnay videogu inaanu dheeraan oo aanu 9 daqiiqo 10 daqiiqo ka dheeraan intaa caawa waxaan kusoo koobaynaa fadliga salaada kaalinta salaadu ku leedahay islaamka habeentan waxaan ka hadlaynaa xukmu taariki salaa qofka salaada ka taga xukunkiisa inuu muslim sii ahaan doono iyo inuu ka bixi doono xerada islaamka wallahu subxaanahu watacaala aclam waxkam fadlan videogani hadduu markii koowaad aad aragto ha ka bakhaylin inaad saarto subscribe channelka islamic reaction tv sidoo kale asiis faafiso khayrka rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacilihi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh sidaas iyo kulanti dambe oo wanaagsan